qaabka dumarka loogu keensado in ay ka horbiyo baxaan hadda waxaan sheegaynaa qaababka ugu fiican ee loogu tago dumarka xilliga galmada si ay u dareemaan raaxo macaan badan ma doonaysaa in mar walba xaaskaagu ay ka horbiyo baxdo oo ay aad ku jeclaato haddaba dhinacyadan hoos ku xusan kamar qaabka koobaad ee ugu muhiimsan ee galmada ee dumarka gariirka ka qaadaan waa midda bahalka uu xoog u garaaco qanjirka kintirka hoostiisa ku yaalo xaaskaaga gadaal ayaad kaga imaanaysaa adiga oo farjiga ugu galmoonaya iyadoo jiifta adiguna jilbaha ayaad ku istaagaysaa lugaheeda kor ayaad u taagaysaa markaad dhinacan ka marayso ha iloobin inaad hoosta barkin ka geliso markaad dhinac ka marto jirkeedu waxa uu soo deynayaa dheecaamo fara badan kuwaasoo aad ku arkayso inay ka soo burqanayaan xubinteeda taranka qaabka labaad ee isna muhiimka ah ee isaguna muhiimka ah waxa weeye inay xaaska dhabacan u seexato adigana gadaal ayaad uga imaanaysaa markaad dhinacan ka marayso ha iloobin inaad barkin u geliso gumarka ama caloosheeda qaybta hoose dumarka haddii qaabkan loogu galmoodo waxaa lagu yaqaanaa in dhidid jirkooda ka soo duxo midda kale waxay dareemayaan kacsi nooca ugu sarreeya riinkoodana meel fog ayaa laga maqlaa qaabka saddexaad ee aan halkan idinkugu soo bandhigayno waxaa weeye in ninka uu fadhiisto oo iyaduna waa ay ka kor maraysaa hawshan waad isla wadaysaan ku ciyaar oo tataabo naasaheeda waxay ugu fiican marka leedahay futo weyn iyo naaso waaweyn ib dheer leh iyo barideeda si dareenkeedu uu usii xoogaysto markaad halkaas marayso waxaad arkaysaa iyadoo macaan dartii la oynaysa si xoog badanna way u biyo baxaysaa waa qaab sahlan oo nin walba sameeya